ما وين هي الدكتور عبد الحاور ديره فليتفضل مشكورا. صدوش عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعمتا إلهي ونوغ الله دايستي فراها بدن لسوكو بكرين يان أوغو شكرينينا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. إن إلهي لغو الشكرية waxay u baahan tahay iimaan iyo in nicamta muncimkii nicmeeyey loo ogaado lagu barto oo loo aqoonsado. qur-aankana waxaad arkaysaa wixii oo lagu ducaysanayo in ilaahay uuna waafajiyo shukrigiisa. aayaadkii uu akhrinayay qaariga waxaa ka mid ahaa rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إن إلهي أن وافجيه نعمتي سينا كشكرنه. صحابي جليلة ولي معاذ بن جبل رضي الله عنه. يا نبي الله بلو حير معاذ وانكو تعالهاي ولو دارتو حير والله وانكو تعالهاي ka tagin salaad kasta gadaasheeda inaad tiraahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika. ilaahu igu kaalmee dikrigaada iyo shukrigaada iyo cibaadadaada wanaajinteeda. marka walaalayaal wax yar ma aha fudud in ilaahay nicamtu noogu galladaystaan ku shukrino. waxaa ka mid a nicmat اlislaam wاliimaan nicmadu ilaahay la siiyey. waxaa ka mid a nicmada qur'aanka kariimka ah ilahay nugu galladaystay subxaanah. waxaa ka mid a nicmada nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam inuu ilaahay naga dhigay ummaddiisii. waxaa ka mid a ammaanka iyo nabadgelyada aan haysanno. waxaa ka mid a duriyada iyo carruurta uu ilaahay nagu arsuqay ee na siiyey. waxaa ka mida inuu ilaahayna waafajiyey in carruurteennii aan waddada khayrka ee wanaagga ah ku barbaarinno. waxaa ka mida inuu ilaahayna siiyey macallimiin waxna barta oo qur-aanka xumbaarsan oo carruurteenna waddadaas wanaagsan ku toosiya. nicam laa tucaddu walaa tuxsa, waa nicmo aan la soo koobi karin waay. in marka maanta oo kale farax badan la muujiyo, nicamtan ayadaa qiimaheeda la muujiyo. dadweynaha magaaladan deggan ee faraha badanna ay aad iyo aad raynrayn iyo farax ay wejigooda oga muuqato ayay mudan tahay maanta. waa kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wax meesha lagu hayo. bal kalaamka ilaahay iyo isgarab dhig kalaamka makhluuqa wax la isgarab dhigi kara ma aha. bal hadalkii saxaabada iyo nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisu iyo hadalladeenna ma laysgarab dhigi kara maya. laa tacridanna lixaalina can dikrihim laysa asaxiixu ilaa mashaa kalmuqcadi. wax laysgarab dhigi kara ma aha. laakiin likulli inaa'in bimaa fiihi yandaxu. weel walbaba waxa ku jira ayaa ka soo daata. qof walbana waxa uu qiimeeyo ee agtiisa ku weyn buu jeclaadaayoo muujiyaayoo u soo baxaa. qof walba wuxuu rumaysan yahay ayuu ku dhiiradaa oo la weyn. waxaa laga yaabaa mararka qaar in muddo dheer qorrax la taagnaado oo qorraxda xanuunkeedii iyo kuleelkeedii iyo dhididkeedii aan la dareemin. sababta waxaa weeyaan wax ku halmaansiiyaa meesha ka socda, wax macaanoo la dhandhansanayaa meesha ka muuqda. qosol iyo farax iyo sacab baa laga yaabaa weliba inuu sii socdo. maxaa yeelay waxaasaa la jecelyahy. man axaba shayan akara min dikrihi. qof walba wuxuu jeclaaduu sheegiisa badiyaa. sidaa weeyaanoo dadku mashaaribtooda iyo madaahibtooda kala duwan qof walba iyo waddadiisii weeyaan. waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum warasuuluhu wاlmu'minuun.
ilaahay camalkeenna waa arkayaa subxaanahu wa tacaala, qof walbana wuu arkayaa. mu'miniintuna way arkaan mar walbaba rasuulkeennana calayhi salaam makhraati buu ka noqon doonaa ummaddiisa. sidaa darteed walaalayaal, khayrkan waa maalin faraxeed aan ku faraxno, waa maalin lagu shukriyo ilaahay oo nicmo cusub weeyaane aan ku shukrino. carruurtaas ayada ee qur-aanka baratay ee xifdisayna ilaahay aan ugu shukrino, macallimiintii wax bartayna aan ku shukrino, garab istaagna aan muujinno. qof walbow wixii tabar iyo taag ka ah ku garab istaag khayrka iyo xaqa inta aad nooshahay, intaa unbaa hadhow wax ku noqon doontee. adduunyada waa maalmo yaroo kooban, waa laga tegi doonaa. waxaa la isweydiin doona waxaa weeye allah iyo rasuul iyo kitaab iyo diin baa la isweydiin doonaa. middaa weeye midda hadhow lagu kala bixi doono, dadna ay ku liibaani doonaan, dadna ay ku khasaari doonaan. marka kuwa khasaarana waa kuwa maalinta qiyaamo khasaaray, kuwaas weeye kuwa khasaaray. qodobkaa waa qodobka koowaad. macallimiinta iyo maamulka raabitada iyo dadka u kaalmeeye garab istaagay intaba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra. carruurtan qur-aanka baratayna ilaahay qur-aanka ha ku sugo, kuwo kitaab xoora ilaahay kama dhigo, qur-aanka tuura ilaahay kama dhigo. a'imma iyo mucallimiin dadka waxbara oo tujiya oo khudbeeya allah ka dhigo. waalidiintood kuwo ay ku farxaan allah ka dhigo, cilmu yuntafacu bihi ha ka dhigo. macallimiinay waxaan leeyahay wax ka weyn ood helaysaan ma lahaa in ilaahay qur-aankiinnii uu qabuul siiyey oo dad inaga qaadoo xumbaara aad hesheen, oo haddaad dhimataan uu inii socon doono, oo dhaxalkii nabiga aad hesheen calayhi salaatu wasalaam, oo hadhow qiyaamaha markii la tagana uu taaj waalidkii ilmaha dhalay iyo wixii waxbarayba ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala. saas darteed macallinka niyaddiisa ha sii hagaajiyo, dadaalkiisana ha sii badiyo. beerta ay abuureen midhihii beerta ay abuureenna way arkaana maanta la goosanaya. beertay abuureen midhaheedu way muuqataa. maxaa yeeley qofkii intuu beer abuura beertiisa waxba ka soo bixi waayaan iyo qofkii beertiisii midhihii laga goosto isku mid maaha. macallimiina waa lanaga aflaxay, laakiin shaqadu way socotaa ayaa laga daalin ilaa aad ardadii aad waxbarteen ay macallimiin noqdaan oo kursigii iyo booskii ay la wareegaan. shaqada ayada waa inii taallaa, horay u sii socda, kuna sabra. wax allaala wixii duruuf iyo adduunyo ah oo ina soo gaadha, intii nabigeenna soo gaadhay oo dhibaato ah oo saxaabadii soo gaadhay oo taabiciin iyo atbaacu taabiciin waman tabicahum biixsaan ayaa ka badan. waxay raadinayaanna maanta way heleen oo janno iyo darajadii sare ah way heleen. aan ku sabirno. qodobka kale u dambaysa waxaa weeyaan walaalayaal, dad muslimiinaan nahay, dad walaalaana waa nahay, dad iyo dal iyo diin intaba wuu naga dhexeeyaa. saa darteed aan noqonna dad walaalo ah. wakunuu cibaada allaahi ikhwaana, addoommihii ilaahay walaalo noqda. hala iska ilaalinno wax walaalnimada dhaawaca oo ay ka mid tahay cadaawadda iyo wax iska sheegga iyo wax isku maaragtay isku geysashada aan iska ilaalinno. quruxdan aad arkaysaan quruxdan waxaa lagu helay nabadgelyada iyo isku duubnida lagu helay. dowladnimada iyo quruxda iyo maalkan iyo muuqaalkan oo dhan waxaa lagu helay walaalnimo iyo midnima lagu helay. saa darteed aan ilaalinno nabadgelyada, aan ilaalinno ismaqalka, aan ilaalinno isku duubnida. gaar ahaan xilligan kaambeenka uu bilowday waxa la yidhaahdo ee doorashooyinka la isku diyaarinaayo, qof walba ha isxakameeyo. qof walbana yuunan la imaanin xadgudub, yaan lala imaanin dulmi. walaalkaa u weeyaan, asagaa kugu soo hadhi doona. dhulkii baad wada leedihiin waa isku soo hadhaysaan, diintii baad wada leedihiin waa isku kaalmaysanaysaan, meelaad ku kala tegaysaan ma laha. haweenka arrintaa ayadaa ha qaataan, dhallinyaradu arrintaa ayadaa ha fahmaan, odayaashu arrintaa ayadaa ha ka taliyaan. xaqiiqada dhabtaa waxaa weeyaan dadka waa walaalo wayna ahaan doonaane. markii siyaasad la gaaro yuuna fareenka gu'in oo isteylinka jabin, oo dadku ayna noqonin dad waxay rabaanna ku hadla, waxay rabaanna sameeya ayna noqonin, oo la dhaawicin walaalnimada iyo ehelnimada iyo diinta iyo akhlaaqda. arrintaa ayadaa aad ha loo ilaaliyo. waa maalmo yar, waa laga gudbaayaa. mulkiga iyo madaxnimadana ilaahay baa iska loo bixiya. qofkuu rabana wuu siiyaa, qofkuu rabana wuu ka qaadaa. sidaa darteed arrintaa ayadaa waan ku celcelinayaa munaasabo kasta oo la iskugu imaado
oo aan iskugu imaanana waa inaan ka sheegnaa waana ka sheegnaa arrinta ayada aan ku dadaala jazaakum allahu khayran gacmaha aan isqabsanno aan iskaalmaysanno xafladdan quruxda badan ee madaxdu ka soo qayb gashay ee dowladda countiga Gaarisa ay qayb libaax ku bixisay dhaqaalaheedii iyo maalkii dhaqaalihii ay ku bixiyeenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaahu allahu khayran gaar ahaan ragga dhallinyarada ee mutacalimiinta ee wax dadka baraya dowladda ku kaalmaysay garabka ugu noqotay ee shaqadii awalba ay wadeen horra ay wadeen kadibna ay wadi doonaan haddana ay wadaan oo u kaalmeeyey xuquuqda ay lahaayeen iyo muwaadanadii ay lahaayeenna ku garab istaagay xaqoodii dowladdan ayadan waxaan leenahay waad mahadsantihiin wixii kale oo madaxaana ha ku daydaanoo shaqada ha la wadaano waxaana yeelay rag badan baa hadda shaqadaasi ayaa ka qayb qaatayoo laga shaqaaleeyeyoo dee xaq bay ku leeyihiin mar hore ay ahayd 50 sano oo shaqo la gelayay oo mushaar la qaadanayay oo waddanka wax lagu lahaa ayay qatanaayeen marka in kuwii horena loo soo magdhabo kuwan dambana loo sii wado ayaan annaga qabnaa si guud ahaaneed dowladda guud ee waddanka o dhan ba xukuntaba markaan la hadlayno marka jazaakum allahu khayran waa saxaad ogtihiin inay culummadu ayna ku xidhneen mushaar baan ka qaataa iyo kama qaata midna kuma xidhnee risaaladoodii iyo manhajkoodii iyo waajibkoodii bay gudanayaan mid u shaqeeyiyo mid aan u shaqayninba waa waajib diina waxay gudanayaana saa ha la ogaado culummaduna niyadda saa ha u sheegaano qalbigoodana ikhlaas iyo alla dartii ha ku ilaaliyaano xaqana siduu yahay ha u socdaano mar walbaba sidii marka horeba ahaan jireen haddana ay yihiin ha ku sii wadaanoo habaadka iyo sugnaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weyddiisanno yaa muqalliba alquluub habbit quluubana calaa diinika ilaahay diinta ha nagu sugo kitaabka qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta midigta ha noo geliyo qalbigeennana ha ku shubo away aamiinti miska dhaafteen waabiyo ilaahay qalbigeenna iimaan ha geliyo tawxiidka ilaahay qalbigeenna ha ku sugo qabriga ilaahay ha noo waasiciyo cilmigeenna cilmi naafica allah ka dhigo carruurta yaryarka ee qur-aankaasi lagu shubay ilaahay qur-aanka ha ku sugo kuwa mujtamaca taqyiiriyo oo bedela xagga wanaagga u bedela ilaahay ka dhigo hoggaamiye fiican kuwa hadhow ka soo bixi doona hoggaanka waa ayagae ilaahay hoggaamiye fiican ha ka dhigo ilaahay umuurahooda ha sahlo madaxdeenna meelay joogaanba ilahay ha noo barakeeyo ilaahay xaqa ha ku toosiyo ilaahay raxmadda qalbigooda ha geliyo ilaahay mas-uuliyadda iyo xilalka iyo waajibaadka ay hayaan kuwii garta oo u istaaga oo ka soo dhalaala allah ka dhigo quluubta ummaddan ilaahay ha isku soo xidho isku soo aruuriyo midnimadan ilaahay ha noo ilaaliyo amni iyo ammaan allahna siiyo kuleelkiibaa hadda lagu jiraa roob ilaahay hana siiyo allahuma aghithna اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا سقيا الرحمة لا سقيا عذاب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا